dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u malaynayaa sida madaxdii iga horreysay ay sheegeen muhiimadda kulankan maanta sida uu loo fasiray weeye waa kii labaad oo noociisa ah. waxaan rajaynayaa inuu hordhac u noqdo beyj cusub oo mas'uuliyiinta iyo golayaasha dawladda Puntland u furma oo ujeedadiisu tahay in wixii loo igmaday ay isu kaalmaystaan. dabcan golayaashan waxaa loo igmaday inay bulshada u adeegaan maadaama adeegayaal aan nahay shaqo naga dhaxayso. waxaan ilaahay idinkiis rajaynaynaa inaan noqono dad si dhow u wada shaqeeya. dabcan maanta waa qado iyo maalin nasasho, laakiin waxaa goor dhow haddii alla idmo aan ku xejin doonaa kulamo shaqo oo ay yeelan doonaan golayaasha dawladda si guud iyo si gaargaar ah. waxaan rajaynayaa inay u horeyn doonto golaha fulinta oo la kulmi doona golaha baarlamaanka aqalkiisa kula kulmi doona una soo bandhigi doona waxyaabaha wasaaraduhu iyo herarka ay marayaan oo kooban. waxaan rajaynayaa inay hadda kadib wasiiradu inta aan iyaga la xisaabin iyagu hordhac u keenaan meesha wax u marayaan haddii ilaahay idin ka dhigo. dabcan marka laga tago golaha garsoorka golayaasha kale waa golayaal siyaasiyiin. golaha garsoorku waa golihii dhinac marka laga fiiriyo la dhihi karo asalka ay dawladnimadu ku salaysan tahay oo cadaaladda hayay weeye. waa golo ka duwan xeerarka iyo habka lagu soo dooro golayaasha siyaasiga. waa golo xirfad iyo aqoon iyo hufnaan iyo kriteeriya gaara lagu xulo iyo khibrad. laakiin golayaasha kale waa golayaal siyaasadeed oo dadka ay matalayaan ka yimaada inta badan. waxaan rajaynayaa golayaashu isku duuban haddii golo walba shaqadiisa uu garowsado sida dastuurka iyo qawaaniinteen ay noo dhigayaan in la isqabsado way adkaanaysaa qiyaastayda. waxaan kala saarayaa marka la wada shaqaynayo waxa yimaada oo af Soomaali hadda kuma garanaa ixtikaak. marka af Soomaaligu ma aqaan wuxuu noqon doono waa la isku dhacdhacaya xogaa iyo khilaafka farqi baa u dhaxeeya. hirig waa Soomaaliga hirigta maamul waa wax basharka ku salaysan oo dad wada shaqaynaya ma dhahayno suxubi baan noqonaynaa oo aragtidu waa kala duwanaanaysaa. doodu marmar bay kululaanaysaa. bini aadan iyo masaalixda isku sinninba dhinac ka istaagaya. laakiin waxaasoo dhan haddii la isla ogol yahay in la wada shaqeeyo oo sharci lagu shaqeeyo si sahlan baa xal loogu helayaa. laakiin haddii wada shaqayntaasi aysan u muuqan wax kastoo wanaagoo la samaynayo haddii la furnaan jirin dana kala jeeda ay jiraan wax kasta oo la sameeyo si la isu qanciyo adkaanaysa. wax kasta oo la sameeyo si la isu qanciyo aad bay u adkaanaysa. qiyaaskuna waa dhumaya. haddii golaha baarlamaanku uu yiraahdo oversight baan leeyahay xukuumaddu waa qiimeynaya oo xukuumaddii wax wanaagsan ka shaqaynayso haddana la dhaliilaayo ama la qabsanayo ama la eedaynayo halkaas waxaa ka soo baxaya in aan oversight uusan jirin macno kaleeto uu halkaa ku hoos jiro. runtii macnahaasna wuxuu ka go'an yahay adeegii bulshada loo hayay. dabcan in la adeego waxaa aad u xilsaaran waa hay'adda fulinta iyo hay'adda garsoorka iyada nafirkeeda adeeg haysa.
laakiin hay'adda wakiiladu adeega ay hayso adeeg si toos ah ugu dhacaya bulshada ma aha adeegeedu waxa waaye matalaad iyo qareemid iyo oversight iyo inay wax saxdo iyo inay wax toosiso hay'adaha kale oo adeega fulinaya dabcan madaxweynuhu inkastoo uu golaha wasiirada u gudoomiyo laakiin haddana sida dastuurka xeerku uu dhigayo waa head of state state-kaas oo madax ka yahay marka golayaashu dhinaca kale marka loo fiiriyana way u siman yihiin oo waa inuu ilaaliyaa laga rabaa oo sharciga uu ku ilaaliyo dastuurka inta marka laga soo tago oo Soomaalnimo loo hadlo hadda dad ahlo oo deegaan wada deganna dhinaca kale marka laga fiiriyo oo habka Soomaaliya hadda u dhisan tahay waa state isri iyo ood wadaag ah markaan afka si fiican ugu ballaariyo marka wax lagu kala tagi karo way adkaanaysaa dhinac walbaba dawladnimaduna waxay ku dhisan tahay in la wada shaqeeyo ehelnimada iyo dadnimadana waxay ku dhisan tahay in la iskaalmaysto islaamnimaduna waxay ku dhisan tahay tacaawunu cala albirri wattaqwa marka way yaraan kartaa khilaafka sida kelmadda khilaafka af Soomaaliga iyo Carabiga farqiga u dhaxeeya iska qabsashada khilaaf ma aha kala aragti doonaanta khilaaf ma aha khilaafku waa wax keeni kara in masaalix guud oo caam ay burburto marka tan la diidayo oo ama islaamnimadu diidayso ama dawladnimadu diidayso dawladnimada khad ahmar waxa uu ah in laga xadgudbo dastuurka oo wax keeni kara burbur kululaanta Soomaalidu waxay abuurtay inuu nin walba sharciga gacantiisa ku wato laakiin su'aasha waxa taalo waxay maxaa laga dhaxlay foolxumada Soomaaliga ka taal maanta laga dhaxlay 30 years in dadku heshiin la yahay inay ismaamulaan Puntland aad baan runtii dadkii ka soo shaqeeyay oo wali wadayaasha dhaqanka ay aasaas u yihiin oo Ilaahay ku ilhaamiyay kuna guuleysteen inay ismaamulaan ismaamulkaas kooban oo Puntland ay haysato waqti iyo maal iyo nafba waa la geliyay in sida loo ilaaliyo haddana dabeecadda bini aadamku sida ay tahay in mar walba xun baa jirta inta la rabo marka gacanta in la qabto haddii kuwii qaban lahaa ay hor ordaan waxaa soo baxaya foolxuma soo baxaysa oo dawladnimada runtii iyo dadnimadaba aanan u wanaagsanayn marka waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idin ka dhigo sida la sheegay in marxaladaas laga gudbo marxalad caafimaad qabto loo gudbo marxalad wada shaqeyn loo gudbo marxalad isla xisaabtan aan turxaan lahayn isla xisaabtanku waa wax wanaagsan waana wax dawladnimada ku jirayso baarlamaanka kaliya ma aha cid xisaabtanto dawladdu ruuxadeeda isla xisaabtamaysa madaxweynuhu wasiiradu waa la xisaabtamay wasiiradu agaasimayaasha waa la xisaabtamay agaasimayaasha shaqaalaha ka hoos waa la xisaabtanku qof walba xil baa saaran qof aan qof la xisaabtamayn male ilaa qofka ugu hooseeya marka fahamka dawladnimada waxaan rajaynayaa in kastoon Soomaaliya inteeda kale ka badbaadnay haddana dariska hadda mar waa ku dayanaysa oo Soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo habka dawladnimadu dhaawac baa ku jira fahamka lagu joogo iyo fahamka lagu shaqeeyo dawladnimada farqi baa u dhaxeeya marka taasna waa tixgelinaynaa oo marxaladda aan marayno wax ka duwan ma qaban karno laakiin waxa la rabaa sagaara inteeda waa ku duqbaaliyay marxaladda aan joogno inaan mas'uul ku noqono marxaladda ay Puntland joogto inay kaga duwanaato inta kale in la dareemo waa muhiim in 22 sano oo ismaamul ah oo kala dambeyn ah oo khaladaadkeeda iyo khilaafaadkeeda wadatay in la xakameeyay maanta waxa laga sugayaa in ay ka talaabo dheerayso deegaanada fursadaas aan hore u soo helin laakiin hadda amaamadka ku jira waxa la rabaa Puntland in ay wixii iyada wanaaga ay samaysay ay la wadaagto walaalahooda kaleeto sida
haddaba dhacaysay oo markay masaa'ib ku dhacaan ama muqdisho ka dhacaan ama tiid beledweyne ugu dambeysay dadka reer Puntland ay gurmud u fidinayeen ayaa la rabaa hay'adaha dawladana gurmud maamul inay fidiyaan oo isteediyada kale wixii ay ku khibrad dhaamaan dhinaca shuruucda iyo dhinaca xeerarka iyo dhinaca agabka maamul manualka material badan bay wasaaraduhu haystaan oo ay ku caawin karaan wasaaradaha kale ee dhismaaya tababaray bixin karaan sida iyagaba tababaro loo soo siin jiray wax badan baa la isweydaarsan karaa marka waxa aan rabno inaan la wadaagno dadka kale walaalaheena ah waa wax annagu aan bixinayno markaan waxaan isleeyahay institutionada aan dhisno weyga kaliya noo furan waxa weeye dalkan inaan dhiirigelino nidaamka democratizationka iyo in dadka la doorto oo wax lagu saxo haddii ay wax khaldanaayeen representationka lagu saxo halkaas aniga aragtida siyaasadeed aan isleeyahay waa loogu gudbi karaa caqabadaha iyo dareenka jira waa taas waxa kaloo muhiim ah dhulkan Puntland midnimadiisa in la ilaaliyo la isku hayo uu noqdo mid u wada adeega bulshadiisa aragtiyaha kala duwan aniga khilaafku ma tilmaamay aragtiyaha kala duwan ee abuurmi karana wada hadal iyo isqancin looga gudbo maraaxishaas waxaan aad u rajaynayaa haddii Ilaahay idin ka dhigo in jawi degan oo mustaqbalka u horseedi kara dadka reer Puntland inay adeeg kay haystaan wuxuun dhaama inay helaan oo dawladda aragtideeda iyo qorshayaasheeda emphasize ka saarayso ay fursad u hesho inay ku shaqeyso waxaan aad ugu kalsoonahay haddii wada shaqeynta hadda la wada ballan qaaday oo qof walba aan rajaynayo inuusan kaga aragti duwanayn odayaashii halka ka hadlay oo ah dad isku maslaxada doon wada saaran shaqo isku mid leh oo inay dadkooda u adeegaan ay tahay waxa loo igmaday in aan isu qaabayno hab maamul oo gaarsiin kara inaan adeegaasna laga sugaa inaan fulino aragtiyaha kala duwanna aan u helno hab ka duwan 10kii bilood la soo dhaafay sidaan u maamuleynay si ka duwan oo si dhaba loo wada hadlo oo loo wada shaqeeyo oo la isugu yimaado kulamo formal iyo kuwa informal oo lagu lafaguraayo xaaladaha jira waan ku kalsoonahay haddii niyad wanaag jirto waxa lagu kala aragti duwan yahay inay aad u koobnaan doonaan inta lagu kala aragti duwan yahay xal muqnaca laga heli doono haddii niyadu ay fiican tahay oo tartan iyo xiniftanku meesha laga yareeyo waxaan qabaa si kale loo dhigo oo wasiirka iyo xildhibaanka isku deegaan ka yimid si wada jiro midaysan deegaanka hawada matalaan oo xaaladooda ha wada qiimeeyaan oo golayaasha dawladdu de lobby baa ka jiray waa taas ceeb ma ahane kelmad fiican hadda ka bartay Puntland oo qareemid ya advocacy kelmadaas waaga hor ma jirin marka qareemid inay noqoto in loo qareemo oo wax loo raadiyo oo laga hadla xaaladooda ceeb ma qofka constituency-giisa in uu soo bandhigo hay'adaha dawladda uu uga lobby gareeyo waa shay dabiici maxaa yeelay waxa laga yaabaa hay'adaas inaysan warba ka haynin xaaladda xagga ka jirta qofka markuu mas'uul yahay wax walba ma wada ogaan karo oo xaqiiq weeye intuusan mas'uul ka noqon scope-kiisa waa koobnaa meelo yar buu ku wajahnaa laakiin markuu mas'uuliyadda wasaaradda yimaado ama wasiir noqdo ama agaasi noqdo de scope-kiisa waa ballaaranaya waxa laga rabaa Puntland oo dhan marka wuxuu ku khasbanaanayaa deegaan walba iyo baahiyihiisa iyo duruufihiisa inuu si gaar ah ula socdo marka ma wada kari karo marka dad deegaanka ka socda inay u yimaadaan oo ay u soo bandhigaan xaaladda jirta waa shay wanaagsan oo runtii la rabo iyadana inaysan loobigu isku bedelin pressure waa kala duwan tahay inaad ka loobi garaysid oo sheegtid iyo inaad pressure ku saartid in waxa la sameeyo farqiga u dhaxeeya waxa laga yaabaa wasaaraddii inay capacity ama qorshaheedu uu ka hor imaanayo mararka qaybtood marka as long as dad Soomaaliyeed wax loo raadinayo waa wax fiican laakiin waxa u maleynaa waxa loobiga laga galo dadka wax loo qabto kaliya ma aan wax kale oo ku jiraan Soomaa waxyaabaha kale oo loobiga oo aan ku jirin wax qabadka iyadan in la yareeyo oo mararka qaar kood xamaasadda iyo caadifada abuuri karta dadkeena iyo deegaankeena iyo dawladnimadeena waxa u fiican wada jir iyo isku kalsoonaan
iyo isu cudurdaarid mararka qaarkood xataa qofku isagoo khaldan in loo cudurdaaro u baahan yahay oo laga garaawo mararka qaarkood duruufaha haysta waxaan aad uga mahad celinayaa in qadadan soo ajiibay waxaan aad uga mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka iyo maxkamadda iyo akhyaarta kale halka joogta waxaan ku faraxsanahay intii hadda la qadaynayay aan dhageysanayo miis walba biisi buu ahaa dadka ruuxadooda waa kala mashquulsanaayo isma arago aadaa loo sheekaystay marka naftirkeeda intaasaaba hadafka laga lahaa qayb ka mid ah in dadku is arko oo is waraysto oo sida loo qorsheeyay in loo wada fariistana aad bay u fiicnaa dadku is dhex galo oo waan rajaynayaa kulamo wada shaqo oo intaan ka ballaaranna inaan qabsanno annagoo ku qurxinayna mas-uuliyadeenna iyo adeegga ay bulshadeenna naga sugayso waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa xafiiska madaxtooyada oo runtii hawshaan soo qabanqaabiyey oo waqtiga kooban ee lagu gaarsiiyey siday u agaasimeen oo uga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idan ka dhigo in beyj cusub oo laabfurnaana aan galno annagana waxaan diyaar u nahay xafiiska madaxtooyada waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ula shaqeyno golayaasha oo dhan si dhow inaan ula shaqeyno oo ayna noqon golayaashu golayaal laysu maro marka golo walba in tixgelintiisa iyo wada shaqayntiisa la xoojiyo waxaan rajaynayaa haddii ilaahay inaan si dhow wada shaqayn doono aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi